goobaha waxbarashada magaalada Beledweyne oo xirnaa muddo ka badan bil isla markaana ay saameysay fatahaadii u geystay webiga Shabeelle ayaa dib loo furay si loo sii ambaqaado sanad dugsiyeedkan. Marka laga soo tagay fatahaadda ay hakad gelisay waxbarashadii ardayda, waxay sidoo kale dhibaato u geysatay fasalada iyo agabyada goobaha waxbarashada ee magaalada Beledweyne. Maamulaha iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne Maxamed Axmed Xasan Koronto ayaa Radio Bell u sheegay inay dib u bilaabeen hanaankii waxbarashada, waxaana sidoo kale uu ka warramayaa dhibaatada goobaha waxbarashada Beledweyne ay u geysatay fatahaadii webiga Shabeelle. 2023-2024 sanad dugsiyeedkan waxaa magaalada Beledweyne ka dhacay fatahaad sida la socotaanba. Fatahaadda magaalada dhan saameysay waxay gaab gelisay waxbarashada ayadoo saameyn ku yeelatay dhammaan goobaha waxbarashada. Taa waxay sabab u noqotay in waxbarashadii istaagto in muddo ah. Falilah alxamdu hadda waxbarashadii dib loo furay isbuucii la soo dhaafay ilaa isbuucan. Labada isbuuc hadda alxamdulillah waxbarashadii dib u bilaabatay. heerkeeda bilaabashadeedana ma sha Allah waaye. Saameynteedii leedahay dabcan agabkii waxbarashada fatahaadda agabkii waxbarashada iyo waa wax badan ay baabi'isay, laakiin waa la kabanayaa in yar loo kabanayaa. Dhanka waxbarashada gaabka galay iyo qaabka loo buuxinayo iyo waxay u baahan tahay waqti iyo juhdi in la geliyo iyo waqti dheeraad in loo helo iyo dadaal in la wada bixiyo. dhan waalid, dhan maamul, dhan macallin, dhan arday dadaal in la wada bixiyo. Taas waxay baalkii fududaynaysaa in gaabkii waxbarasho dhacay la soo buuxiyo oo si wada jir ah. Doo macallinka kaliya dadaalo ama maamulka macallinka ay dadaalaan oo labada kale ay maqan tahay, waxa waaye waa number badan maqnaanaya, boqolleyda number badan maqnaanaya. Marka sidaa darteed arday, waalid, macallin, maamul qof kasta meeshiisa inuu ka xanjeerto oo dadaalka iyo juhdiga aan wada galno kadib taas lagu wada guuleysan karaa. gaababkan imaanayana loo xalin karaa. Falilah alxamdu hadda waa agabka waxbarashada iyo waxa halaabayna kulli waa in yar loogu soo kabanaya. Maxamed Cumar Faarax oo kamid ah ardayda dhigatay iskuulka Sigma ee magaalada Beledweyne ayaa Radio Bell loo sheegay inay ku dadaali doonaan sidii ay uga soo kaban lahaayeen hakadkii ku yimid waxbarashadooda. marka muddo ka hor waxa waaye sidii daraasadeen noogu socotay Allah subhanahu wa ta'ala waxa waaye waxaa na soo asiibay ama imaaday fatahaado ay sababeen roobkii ama daadadkii lixaadka lahaay ee imaaday ka da'ay dalka. marka taasoo ku yeelatay saameyn waxbarashadii hakadna gashay inta badan ay xirmeen goobaha waxbarashada gaar ahaan gobolka Hiiraan, taasoo caqabad ku ah sanad dugsiyeedka ama waxbarashadii u socotay sida daaragtiga, taasoo inta badan waxa waaye saameyn ku yeelatay oo sababtay in waxbarashadii hakad gasho. haddana alxamdulillah wax kastoo dhacay waxa waaye qadar ay ahaayeen. waxa waaye si nabad aan ku soo laabanay goobihii waxbarashada noogu furmeen. waxa waaye daraasadeena dib u qaadanaynaa. waxa waaye waxaan rabnaa inaan dhigeena oo sheegay arday Soomaaliyeed oo badanaa badalka inaan waxa waaye wax la qaybsano imtixaan loo wada galno, taasoo arday yani inta hadda aniga duruusta inaga xiran ama hakadka nooga jirtay qaadanaya cashiraantiisa u socdeen aan rabnaa inaan wax la qaybsano. taas marka waxa waaye waxay ku tusinaysaa yani juhdiga iyo dadaalka hadda macallimiintu ay bixinayaan oo ka meel dhaliyaan ay rabaan in ardaydaas dhigeena aan wax la qaybsano ayaa waxa waaye aan anaguna dhinaceena ka dadaalayna oo har iyo habeen waxa waaye aan wadnaa dadaalkii sidii dhigeena ardayda dhigeena aan wax u la qaybsan lahayn. waxbarashada ee magaalada Beledweyne ayaa sanad kasta marti u noqda dad ka soo rogmada webiga Shabeelle kuwaas oo burburiya fasalada iyo agabka waxbarashada. Maxamed Cabdi Sanay, Radio Bell, Beledweyne.